walaalkay waa maqlay cajalada video waa fiirsaday runtii aadan ugu xumahay gabadhi hani inaad adiga qabtidaad ii sheegtay oo naag la qabay ay tahay haddii sheekada aad ku sii socotid dabin aa lugta la soo gashiya soo soco wixii ka heshid aa leedahay. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي واسماعيل حسن عبدي يوتيوب كداون إنسان واسماعيل تام تي في فضل هندال نوع عشان تحكي عشان يوتيوب كنا سبسكرايب نصرته هذا ضروري الجوك تنادي إذا كايمة علينا الجوجا كسر بقال عصب إن أنت أنا مقال كسر دبانين إن ساعدي قدام به آلة تيك توك آلة يوتيوب كوحة قبصدي إن ولكن أنا كمال عبد القف والبويا غانا إن ويلكي رير ماليزيا كنوا لاجرة دن حمر ما ذي كدي بحي تركي هذه إن هذا أقل جري أيا وحال اللي هي إن gabadhuu guursaday mise xaaskiisa wuxuu guursaday iyadoo la qabo. run ahaantii Soomaali haddii adiga ku soo daba dhigato wax un way ka sheegay gabadh walaasheena ah xalay miya ama shalay miya ma aqaan Instagram-keeda laga jabsaday laga jabsaday maxumo qof iyada iska dhigaayo ayaa micnaha Kamaal la soo hadlay. qof iyada iska dhigaayo ayaa waxa la soo hadlay Kamaal wuxuuna leeyahay aniga haniyan ahay waxa waaye anigoo la qaba guursatay waxyaabo noocaas oo kale la sheegaa sidoo kale luuq waxa lagu soo diray odiga matalaayo asiga aabihiisa oo dhahay gabadhi waana qayaantay sidoo kale waxa waay wiilkiina waxaas inuu sameyn doona kama filinaynin adiga waxyaabo barnaamij badan oo ka sheekeena sidoo kale codad la soo duubaa jiro oo la soo diray asla daawanayna asagana Kamaal muxuu ka dhahay arintaas waan ku tageena waan isla fiirsanayna muuqaalka oo soo hadlay oo soo jawaabay dadkan sidoo kale oo sheegay saaxiibtiis in laga jabsay Instagram-ka laga soo dhaxadlay marka sida caadada like to codsi subscribe ko dhiirigelin way afkaar xagga hoos noo reebay laakiin waxa codsiga ah mar walba codsiga muuqaalkina ila gareyso wixii afkaarna xagga hoos ku soo dhiibato haddoosan YouTube subscribe ku saarnayna subscribe ay saarto ku soo dhaad muuqaalkina faahfaahsan sawirada kugu soo sheegnayba waxa hadda wada daawaneena warbada ma geli doono waxa wada daawaneena odigii micnaha odigan wuxuu matali doonaa Kamaal aabihiisa bal ila daawada. عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkay Cabdisalaam Ali Xaashi qofka halkan ka salaamay waa Cabdixamiid Muumin walaalkay waa maqlay cajalada video waa fiirsaday runtii aadan ugu xumahay gabadhi hani inaad adiga qabtidaad ii sheegtay oo naag la qabay ay tahay oo caruurna ay ku hayso shan Allah barakeey ma sha Allah marka gabadhan wiilkayga oo ii keen waxay ugu soo sheekaysay idan afkeeda ii sheegtay inaan la qabin oo caruurna ay salahayn marka oday aabahaada markii la yirina ninka inuu yimid aabaheeda matala aabaheedna yirina aabaheeda ma hatiri marka arintiina waa haddaan maqlay maanta sharaal ii soo gaartay iyo sidaadaba arin waxay u noqotay aad iyo aad oo runtii madax xanuun ah waa ka xumahay aadan ugu xumahay qaladaa la galay marka su'aasha meesha taagan waxay tahay odigan hadda meesha ka hadlay ma Kamaal aabihiisa mise waa qof iska matalaayo runaantii Kamaal aabihiisa aan wili maanan arkin laakiin qofkan waa qof matalaya aabihiisa marumba macnaha ma beenba runaantii Allahu a'lam alla og laakiin waxaan leenahay Soomaali Maxamed qoysaska dhisan qoysaska sida quruxda badan loo aasaasay yaa la dumin adigu wanaag u jeedo xumaan haraadin walaan ku sii socon wal codadkan way ku xigaan waana la qalday been ala shay kulli marka insha Allah waa arintan waa hagaagaysa waa ka raali garina adiga insha Allah waxa waaye qalada la dhacay meesha ka socdana inta la dhihin waxyaabahan caawa aan furka isugu tuurnay wariyaa waxaan ka bixi fiidiyoyaashan waxa salaysa ka bixi marka insha Allah waa u sheega waa laga bixina asagana Ilaahay warkiisi inuu kii qaata Allah ka dhigo ilma caasi jooga caasi waalidin laakiin ani caasi ma dhalin mana dhalayi insha Allah waa hagaagaysa waa ay sharafta Allah ku sharfo waxa sheegaysan waa wax nin walba rag ka damqaayo dabbay shiday laakiin iyadoo madaxeeda ugu hoora meel ay ku harsatay weynaysa haddii iyada masaakil sameeyay wiilkii gartaa inuu kula galgalato laakiin ma dhacayso iyadoo ku koomay insha Allah wabillahi tawfiiq walaalkay aniga hadda sheekh marka tagdo soo wadwayna waxaana ka saar waa leeyahay الشيخ هبينك 3 ساعة يبر 10 كأسان نوريكو أسرع 10 أنا هبينك تيجي جر عاو متجينا لكن 10 مقدار ماضو قولي سانك بلنسنا هاي وأتجينا وحنا وعيشة في فيديو إنه كسار ولا كسارة فرت هذا عندي
والله بالله تالله هذا كان هذا كريمة انت اللي دهن وحيابها عاو أن فرق isugu tuurnay awada jeednaba codadka waxa waaye codad la soo duubay saamaleen waxa laga soo duubay Instagram laga soo duubay waxa lagu soo duubay screen ku dhaxta lagu soo duubay sababadana la soo hoos dhigay sidoo kale ninkan asagana hadlaayo waa fahmi la ay odayga hadda soo hadlaayo ma aqaano al-amuum hadalka haday aan dhahna waxaan leenahay ku celinaynaa qoys qurux badan oo si asaasi islaami ah lagu dhisay yaa la dudumin haddaad waxba cadeen aadan ku hinin yaa la dudumin inkaas dil dudumiyana yaa la sii faafin run ahaantii waxaan leenahay Kamaal waa wiil Soomaaliyeed oo maasha Allah YouTube-ka ku jiro qof walbana taqaano waxyaabahan haday run yihiin asaa ka soo hadli doono haday been yihiin muuqaal kale asaa soo sameyn doonaba qofka bil aadanka hadii laga been abuurayo hadoo aamuso oo micnaha oo ka gaabsado oo sida waxyaabo bareefad way ka aamuso doo Soomaaliyanka hama sii dabaarayso waxyaabo kale keenayaan waan soo wada aragnay dhacdooyinkii 22 ka dhacay ilaa had 22 lagu jiro dhacdooyinka dhacay waa wada aragnaa marka waxaa leenahay shartu kugu soo wajahan ilaahay ka xijaabo waxaan ka bixi fiidiyoyaashan waxa salaysa ka bixi marka insha Allah waa u sheega waa laga bixina asagana ilaahay warkiisi inuu kii qaat Allah ka dhiga ilma caasi jooga caasi waalidin laakiin ani caasi ma dhalin mana dhalayi insha Allah waa hagaagaysa waa sharafta Allah ku sharfo waxa sheegaysan waa wax nin walba rag ka damqaayo dabay shiday laakiin iyadoo madaxeeda ugu hoora meel ay ku harsatay weynaysa hadii iyada mashaakil salaysan wiilkii yarta inuu kula galgarato laakiin ma dhacayso iyadoo ku kooma insha Allah wabillahi tawfiiq walaalkay aniga hadda sheekh marka tagdo soo wadwayna waxaana ka saar waleeyahay muuqaalka halkaas ku dhamaaday muuqaalka odayga hadlayay iyo codadka halkaas ku dhamaadeen bal haddana wax u gudageli doonaa Kamaal u jawaabay dadkii waxyaabaha sameeyay sidoo kale wuxuu u jawaabay qofka Instagram-ka ka jabsaday saaxiibtiisa sidoo kale saaxiibtiisana meeshan wuxuu ku weydiin doonaa su'aal aad iyo aad u muhiim ah bal muuqaalkaas ay isla soo daawano ay isla soo dhameysano waxyaabuhu sheegay ma waxyaabo runa asiga naftirkiisa ka hadli doono bal aan isla fiirsana bal inoo bilaabo muuqaalka su'aalan ku weydiina su'aasha ku weydiina waxa waa Instagram-kaas gacantaas ka baxay sidoo kale dadkii xasuusan dadkii daawada Instagram-kaas maalintaas sawir la soo galiyay oo qoraal ku qoran tahay story-ga qoraalkaas waxa qornay magacayga hani waaye sidoo kale da'deeda 42 waaye ciyaalan dhali Kamaal waa khiyaani marka qofka sidaas sameeynayo way as u sameeynaa macnaha ay kula tahay adiga adi waxay ila tahay adi inaan kala go'ayno qofkaas camal iyo umaleeyo oo og yahay qofkaas in adi kala go'ayno laakiin waxa ka wada in bulshada yaani maadaama adi qof bulshada ka dhex muuqata aad tahay bulshada shaki in la galiyo anigina zabani aan adigana markaas xanaaqdid oo dhahdid waxaan maxaa waay daciif dhal war ani hadda hadaayay markii video bilaabaan sheegay maxaan dhahay dadka wax ii gal ma lahan dhahay war dadka dhan hadii ka soo horjeestaan adiga ani taas ka tusaale sheego yaani hay dadka dhan ka soo horjeestaan aan ku dhahay oo asi isku dayo horta ma awoodey taas aniga miga dhaadhiciiso okay sidoo kale Instagram-ka gacantaada waa ka baxay qoraalkaas la soo galiyay qoraalkan sidoo kale hadii loo fiiriyo maalintaas aniga waxaan sheegay in gacantaada aska baxay dadkii story-geena ku xirnaayo waa story-geena ku xirnaayo dadkaas inta badan waa ogaadeen macnaha hore in kugu soo sheegay waxyaabahan dhan waxay ka dhaceen Instagram-ka gabadha masaakiinta Instagram-keeda waa laga jabsaday sidoo kale laga jabsaday muxmo waxyaabo iida kulid ah ee Instagram-ka lagu soo post gareeyay ninkan oo lagu sii mission gareeyay waa la soo post gareeyay ninkan oo lagu sii mission gareeyay macnaha soo u arko waxyaabahan meesha ka dhacayo sidoo kale labadood way ogeen qofka waxyaabaha sameeyay ayagan waxay sameeyeen fal aad iyo aad u fiican qofkii sameeyay meeshan kuma soo bandhigin oo u ceeb qariyeen qofkaasna waxaan leenahay muuqaalkan ku soo gaaro niyow qoys dhisan lagu dhisay tiirarka islaamka haddaad isku daydid inaad burburisid runaantii adigana waxaa waaye adduun iyo aakhir ma diiwaanaysid qoys qurux badan meeshii adiga aad ka caawin lahayd haddaa adiga burburisid runaantii saawar in kuu soo sheegna adduun iyo aakhira maba macnaha maba liibaanaysid ba adiga haddii adduunka wax aad ku heshid aakhirada ku heleelin marka labadan qofood waxyaabahay sheegayaan ma waxyaabo xaqiiq ah mis waxyaabo ay qaranayaan su'aasha weydiina waxay ahayd waxaa la ii soo diro dhahay hani waxaan jira 42 sano Kamaal waaqiyaani anoo nin qaba macnaha guursaday caruur ii joogto runaantii qofka labada qof maanta reer ka dhisanayo wax ma kala qasadaan
qoftan haddii hore soo eed qof lasoo qabay lasoo furay way sheegtaa waxay leedahay aniga garowa ah mis carmal sidoo kale qofka doosan wili soo guursanin way sheegtaa waxay leedahay aniga gabaraan ahay wili maana soo guursanin Soomaalina waxay dhahday guriga haddii aasaaskiisa hoos la adkeenin si lagu dhiso adkaan doonto haddii la dhisana soo ku burburo way fudaane marka waxaa leenahay Soomaali Maxamed dadka ka dhamaada Soomaali Maxamed waxaa leenahay dadka ka dhamaada bal intii macnaa muuqaalka oo xaqiiqda ah soo bixi doono ha laga gaabsado dadkan ayaa lagu furin tashwiish bal muuqaalka inoo sii wada عشان بدن حتى ريبوت وادهن حتى إن فيديو عن كهذلو أنيجا وحيقول لي هرت أنيجا كو نيدي مكجرين لكن هني وحيد هذه إن حديب ميشن دتك خار على جيابا إن أي أركان ما يدد بدنا كوسا بكمال يوتيوب كافيرنا مقته قرالات دتك إساقرين كمال كسو جواب يا جبسة إنستغرام كمال جبسة وحى صحمية يا جبسة نمية مساكل وحى جبسة يا نمية مسجاي ناكل كل قفك جبسة أدي وقتها أني نو وجهاي ما أنا هبونا إن أنت كشيء سوشيال ميديا مقصود يصير مياه ما مقصود يصير يعني قفك صاحي ما أنا كم حمانة يعني مو أبهني بإن هذا الشيء لكن أصينا أسوق هذا اللي وحي مهم إن أصي أسوق هذا لا واي إن أنا أدي كله هرين إنه حل مثال يا بنا يعني خف أذيقة حما أذن كفيلينين واي معنا حمانت الناس كلها دمع وما حكينا طبعا كل هاي واي بني آدم بملء أمني كرو قف بني آدم قف كوسوحي ورو مركز كو فكر كرو كو سماي كرو لكن ملء أمني كرو بني آدم ودن مركز وحكو كلفايو ملاقي يابا هني معاني أنكو إنه إلى يوسف هرتو حاليا بنا مكسي كلها إن وحلاي إن مجا هني مومي هرتا ده نمديس تقني مثلا يا بنا هاي إن كستو إن عاي أي فعنا لكن على يا بنا هاي محام مكسي ما هيا نينا إخاب جري معها نينا إخابو معناها خف نين خبو oo nin kala guursanay ama ay yeelas in la guursado intee joogtaan agtaas haddana meherkiisa maxfal laga dhigay oo social media waxaan la arkayna marka ani taas la yaabanahay taas macnaa iga daadeg la anfaanti in aan kula hadalno ma istaashid qof la hadli karana ma tihid laakiin hal mid ama hal qorshe hawada ku soo marnaa magacaaga in aan sheego waxyaabo adiga ku saabsan inaan soo bandhiga ani xiisam igu hayso mana rabin inaad ka soo dhiso laakiin hal mid aan ku sheega waxa waaye qofka dabin loo maleegayo waa la fiirinaa dadkana waa la iska fiirinaa dad waxaa jira cunto ma ay dad cuntamaynin marka haddii sheekadan aad kusii socotid dabin aa lugta lasoo gashiya soo soco waxay ka heshid aa leedahay horta muuqaalkii halkaas ku gabagaboobay intii ugu muhiimsaneed ayaan soo qaadanay waxyaabo badan ay ku sheegayeen waan soo wada daawanay sidoo kale waxay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin qofka waxyaabahan ka dambeeyay in ceebtiis ay qariyaan runaantii waa good point waan ku taageeray sidoo kale waxyaabahan qofkii sameeyay way yaqaanaan waxyaabahan qofkii sameeyay aad iyo aad u yaqaanaan waan u ceeb qariyeen waxaan rajeynaa muuqaalkan hadduu gaaro inuu ka waantoobo waxyaabahan kor iska dhaafo qoys islaam ah inuu burburiyo wiliga niida ha gelin qoys islaam ina burbursid wiliga niida ha gelinin sidoo kale waxaan leenahay muuqaalkii ugu dambeeyay ku noqdo walaalkeena Kamaal aad ugu soo hadashay aan jawaab u siisay dadkan macnaa waxyaabahan sameeynayo anagana waxaan leenahay muuqaalkii halkaas ku soo gabagabeynaa qof walba waxa dareemi karo muuqaaladan qof walba waxa dareemi karo aqli ah oo aqli ku saliimka ay dareemi karo waxyaabaha inay waxyaabo feeg yihiin oo macnaha la rabo labadan qofood in tashwiish dhexdooda lagu furo maanta labada qofood is jecel ilaahay calaf iskugu daray maanta reer qurux badan samaystay adiga xaq ku keentay ina macnaha reerkaas dudumisid qof islaam ah islaanimo sheegana waxaas ma sameeyaba marka muuqaalkan ku soo dheeraada marabo sida caadana aad laagto codsi subscribe kuna dhiirgelin wixii afkaarna xaq oo soo wareebo waxaan kaga tegnaa muuqaal ay kaan oo kale dib ugu kulmi doono sidaas iyo amaan Allah